haddaba ma doonaysaa inaad noqotid trader isku filan? haddii jawaabtaadu haa tahay gabi ahaan jooji dhaqamadani. ugu horreyn waa inaad joojisaa wax la yiraahdo filasho. inta badan dadku waxaa dib u dhiga waxay tahay filashada fog oo trade markuu qaato waxa uu inta badan isku dhufsada ama calculator uu soo qaataa intii oo profit waxa uu leeyahay trade-kani waxaan ka rabaa TB inta inuu isiiyo adistii $1,000 $2,000 waa dabcan trade-kiyo markuu qaato wuxuu galayaa tirin aan loo joogin waliba. sadarteed waxay ku keenaysaa qofkan hadduu trade-kaasi asal kaga dhaco inuu filashadiisa ay xumaato oo isbedel ku yimaado. haddaba marka si taas aysan u dhicin mar walba trade markaad qaadatid ama trade qurux badan ha ku ahaado ama trade iska normal iska ahaado marnaba filashada fog iska daa. waxba isku dhulsan kaliya xisaabso ka hor intaadan trade-ka aadan galin ka hor. haddaba waxaad xisaabsataa inta trade-ka ay kaaga bixi kartaa. maahan trade-ka inaad tiraahdo TB inaa helo maanta oo dhan aad calculator soo qaadatid haddii intaan aan week helo bishi hadaa helo isbuuc hadaa helo inaad isku dhufasho aad samaysid iska jooji. qodobka labaad waxay tahay dib u dhaca jooji. sababtoo ah suuqana waxaa la trade galaya laba xilli inta badan, xilli la yiraahdo London iyo xilli la yiraahdo New York. dabcan waxaad arkaysaa qofkii oo inta badan habeenkii inuu dhafro waxa uu doonayaa inuu London trade galayo. London waa uu ka dib dhacaya oo London oo maba la haleelaya intridiis. taasina waxay hor istaagaysaa waxay tahay inuu ku keento inuu qofkan trader guuleysto oo noqdo oo waayo markii wax la qabsan lahaa waa uu hurdaya oo noloshiisa inta badan waxa dib u dhigay waxay tahay shaqooyin kaleeto. okay qodobka xiga maxay tahay inaad nidaami aad bulshatid maanta oo dhan tiraadid aniga istaraatiijiyadana ima anficin tan ima anficin tan ma aqbalin. dabcan maanta oo idin waxaad ku guda jirtaa istaraatiijiyo burus YouTube-ka maanta oo dhan dhex taagan tahay oo waxaad raadinaysaa muuqaalo ah maxaa hagaagsan istaraatiijiyadan maxay tahay tanaa fiican. qof walba mid buu ku faaninaya, qof walba mid buu sheegaya. taa marka ka gudub oo waxa isku daydaa marka inaad midka kugu horeeya aad qabsatid oo aad ka fahantay in aad lacag ka sameynaysid taa ku ekaaw. qodob kale maxay tahay inaad trade ku qasaartay dib u laabatid. marnaba trade hadoo mar asal kaaga dhaco oo aad ku hareer martid dib ha u galinba iskaga tag maalintaas. haddii ay noqotana xilliga hore hadoo asal kaaga dhaco tusaale London oo trade asal kaaga dhacay trade-kii asal kaaga dhacay weli waxa lagu guda jiraa isla London oo weli xilli London ma usoo ilaa waxa laga rabaa marka trade-kaasi asal kaaga dhacay dib ha ugu laaban trade kale raas. tusaale Euro USD qaadatay asal kaaga dhacday isla Euro USD ku laaban oo GBP USD ama USD card another pair kaleeto waad raadi kartaa. laakiin waxaana si daraa in beerkii aad haday ku qasaartay isla markaa aad ku laabatid. tan xigta beerku waad qaadan kartaa markii xilliga kale la gaaro New York kaleeto. haddii fursad xataa oo ku siiyo oo adiga aad ku degdegtay intaadan qaadan ka hor oo trade-ka iska firin oo markii dambe oo trade-ka rulkiisa wada ansixiyo iska daa xataa qaadan oo waxba kaaga soo kordhayo oo waxaad ogsoon tahay in marka horeba aad ku degdegtay mar walba aad dareemaysaa in zaxmad kugu beermato. haddaba marka taa marka ka soo gudubno qodobka ugu dambeeya aan ka hadli doono waxa weeyaan waa inaad nasiino samaysaa. nasiino waa muhiim maanta oo computer-kaaga shaashada mobilka haduu taagnaanin nasiino waa muhiim. haddaadan nasan oo xilli nasiino aadan yeelan suuqani waa ku jaawareeraysaa adigoo waxba ka qaban gacantaada maran tahay ayaad jaw leedahay. marka nasiino samee. nasiinada dhowr nooc ayay u kala baxdaa. waxaa kamid ah in habeenkii markaad seexanaydo oo kaleeto waqti hore aad marka salaada cisho tukatid waxaad qabsan kartaa aad qabsatid inaadan dhafrin. dabcan tan soo koob waa inaadan dhafrin waaga inuu ku bariyo marka salaada subax tukanaysid adigoo fareesha kadib xoolahaaga aad indeysatid xilligii lagu gaaro London aad trade raasatid. teeda kale tusaale kaleeto nasiino waxaa kamid ah London oo kaleeto trade ama waa baxay ama trade ma uusan bixin inaad nasiino samaysid oo aan dul taagnaan maanta oo suuqa oo xilliyada break-ga oo lunch time ko kaleeto aad magaalka iska raacatid danaha kale iska raacatid kadibna markii New York la gaaro xilliyada New York aad trade raasatid. marka nasiinadu waa muhiim. runtii gunaanadka asxaabta baada barla baad kasoo baa joogtaan waxaan leenahay guuleysta. weekana waxa uu ahaa week iska normal ah oo inta badan waxa lagu guda jiraa July ee gabagaba ah. GBP USD waa trade-ka ugu badan ee baada barla baad ay qaataan waana inta badan weekani trade-ka aan qaadanay GBP USD ay u badnaa. haddaba weekend qurux badan ayaan idin rajaynaynaa. waxaan leenahay guuleysta. GBP USD si qurux badan ayaan macsalaameysay waxaan ka qaadanay targetkii aan ugu soconay baada barla baad kasoo joogtaan guuleysta. salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.